بسم الله تاريخ مركي هيد صدمكي بشي كوي تبنان 2017 محكمة درجة كواد ciidamada qalabka sida waxay markii saddexaad u fariistay dacwad ciqaabeedkii loo haystay Cabdulqaadir Abuukar Shaacir Maxamed 41 jir ahaa ina shoobto shaacir ku dhashay xamar kaasoo xafiiska xirlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu ka tirsanaa kooxda al-shabaab una qaabilsanaa qaybta qaraxyada isagoo sahmin ku samayn jiray goobaha ay kooxdu rabaan in ay ka fuliyaan qaraxyada sidoo kalena baabuurta laga soo buuxiyay qaraxyada geyn jiray goobtii uu soo sahmiyay si loogu qarxiyo waxaana ka mid ahaa goobihii la qarxiyay ee uu soo sahmiyay taariikhdu markay ahayd 13 bishii 2017 qaraxii ka dhacay afaafka hore ee hotel Weheliye halkaasoo ay ku geeriyoodeen 10 ruux kuna dhaawacmeen 17 ruux oo kale b taariikhdu markay 5 bishii 2017 wuxuu geeyay baabuur saaruf ah oo ay ka buuxaan walxaha qarxa makhaayad ka soo horjeeda wasaaradda isboortiga agaarka xaruntii wasaaradda amniga qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen 9 ruux kuna dhaawacmeen 10 ruux oo kale sidoo kale wuxuu soo sahmiyay qaraxii ka dhacay baar Itaaliya taariikhdu markay ahayd 8 bishii 5 2017 halkaasoo ay ku geeriyoodeen 7 ruux kuna dhaawacmeen 11 ruux oo kale d taariikhdu markay 15 bishii 5 2017 ciidamada amnigu waxay ku qabteen Cabdulqaadir Abuukar Shaacir Maxamed isagoo wada gaarigii qaraxa ahaa ee ku qarxay degmada Xamarweyne gaar ahaan XNA dambiile shabaab Cabdulqaadir Abuukar Shaacir Maxamed waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah maanta oo ay taariikhdu tahay 24 bishii 12 2018 waxa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq